بسم الله الرحمن الرحيم كلنتو wanaagsan magaceegu waa Maxamed Cabdi ku soo dhawaada barnaamijka bidhaana oo aad xiligan oo kale ka daawataan Shabelle TV xaruntiisa magaalada Muqdisho qodobada maanta aynu kugu haynana barnaamijkana waxa kamid ah madaxweyne Trump oo dhalay qaabka UK ay uga baxayso wadamada midowga Yurub dawladaha Sacuudiga iyo Imaaraadka oo si hurinaya colaadda ka taagan Liibiya khilaafka Mareykanka iyo Iiraan oo si xoogeysanaya iyo dhinacyada isku haya Afghanistan oo gaaray heshiis taariikhi ah qodobadaasi ayaad barnaamijka daawadayaal ku daawan doontaan inta aynu ku guda jirno u diyaar garooba madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo lagu tilmaamo inuu yahay hogaamiye hadalkiisu cad yahay ayaa hadda waxa uu dhalay siyaasadda ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska ee Theresa May ee ku waajahan qaabka ay uga baxayso midowga Yurub waxa uu ku tilmaamay Donald Trump Theresa May haweeney jahwareer ku riday jadwalka uu Ingiriisku uga bixi karo midowga Yurub isagoo ku faanay inuu siiyay talooyin ay diiday buu yiri inay raacdo madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa weerar xagga afka ah waxa uu ku qaaday ra'iisul wasaaraha waddanka Britain Theresa May waxaana uu ku eedeeyay waxa ugu yeeray natiijooyin aad isku qasan oo ka soo baxay go'aankii Ingiriiska uu kaga baxayo midowga Yurub madaxweyne Trump ayaa si kulul ugu cambaareeyay bartiis Twitterka Theresa May waxaana uu sidoo kale ka hadlay danjiraha Britain u fadhiya Mareykanka ninka Sir Kim Droch oo isagu uu ku eedeeyay in uu dusiyay hadallo wax ka sheegayay madaxweynaha Mareykanka oo ku eedanaya in Trump uu aad u jecel yahay in warbaahinta uu laga arko Trump ayaa haddaba waxa uu aad ugu faanay in Theresa May uu hore ugu sheegay qaabka Ingiriiska uu uga bixi karo midowga Yurub laakiin waxa haddana uu ku dhalay inay ku guudaysatay go'aankeeda ay arintaasi ku raaci kartay waxaana uu sheegay in ay qaaday waddo kale oo aan ahayn waddadii isagu uu tilmaamay waxa kale oo madaxweyne Trump uu soo jeediyay in aqalka cad aanu la sii shaqayn doonin Droch maadaama buu yiri xadgudub uu ku sameeyay sharafta madaxweynaha Trump ayaa waxa kale oo uu yiri anigu shakhsiyan ma aqaano danjiraha laakiin ma aha nin laga jecel yahay waddanka Mareykanka mana la sii shaqayn doono waxa kale oo intaasi uu raaciyay in war wanaagsan uu soo baxay oo ah in Ingiriiska dhawaan uu helayo ra'iisul wasaare cusub oo Trump uu muujiyay in wada shaqayn cusub oo hor leh oo la yeelan doono Mareykanka Britain u qaabilsan dawladda Britain xafiiska wadamada buraaqsooranka ee dibadda ayaa waxa ugu baaqay oo ku tilmaamay hadalka Droch inaanu wax saameyn ah ku yeelan doonin mowqifka London ay ka taagan tahay siyaasadda arrimaha dibadda iyo midda gudahaba waa tahay daawadayaal wali halkaasi aad nagala socotaan waa Shabelle TV stuudiyiisa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya imikana dawladaha Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa waxay wadaan dadaal ay ku hubeenayaan hogaamiyaha militariga dalka Liibiya Khalifa Haftar dadaalkaasi oo ay sidoo kale kaga taageerayaan xagga dhaqaalaha iyagoo u diyaarinaya maleeshooyin caloosho u shaqaystayaal ah oo Afrikaan ah si markaa go'aan looga siiyo Haftar inuu qabsado caasimadda Tripoli ee waddanka Liibiya sida ay qortay jirnada fadhigeedu yahay London waddanka Ingiriiska mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Imaaraadka ayaa waxa ay soo gabagabeeyeen heshiis ay la galeen hogaamiyaha militariga ee fadhigiisu yahay bariga dalka Liibiya ee Khalifa Haftar heshiiskaasi oo lagu siinayay dagaalyahano ka soo jeeda Suudaan iyo wadamada kale ee dariska ah isku day markaasi Khalifa Haftar uu ku doonayo in uu ku qabsado caasimadda Liibiya ee Tripoli jirada maalinlaha ah ee la yiraahdo Al-Arabi Al-Jadid oo soo xiganaysa ila wareedyo laga helay wadamada Liibiya iyo Masar ayaa waxa ay sheegtay in diyaargarow balaaran oo ciidamo aad u fara badan ah uu ka socdo xuduudda galbeed ee Masar iyo waliba xuduudda koonfureed ee waddanka Liibiya iyadoo ciidamadaasina dhaqaalaha ay ka helayaan wadamada Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka
jiradu waxa ay kala ay soo xiganaysaa ilaa laga helay waddanka Masar oo sheegaya in heshiiskaasi la kala saxiixday maalmihii ugu dambeeyay oo lala saxiixday maleeshooyin Afrikaan ah oo ka soo jeeda wadamada dariska ah Suudaan si markaa ay uga qayb qaataan hawlgalka Xaftar uu ku doonayo inuu ku qabsado caasimadda Tripoli ciidamadaasna taa loogu bedelo lacag la siiyo ilaha kale ee la helayo ayaa waxa ay sheegayaan in heshiisyo lala galay maleeshiyada ka soo jeeda waddanka Chad oo ay maalgelinayaan wadamada Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka waxaana isku daygoodu uu yahay si markaa loo yareeyo fargelinta dawladda Turkiga ay ku hayso waddanka Liibiya ee ay ku taageerayso dawladda jimcadaha qurmaha ka dhaxaysa ay taageersan tahay waddanka Liibiya ee marka magaceeda la soo gaabilayo GNA inkastoo wali uu socdo dagaalka xagga afka ah ee dhaxmaraya dawladaha Mareykanka iyo Iiraan ayaa haddana dhinaca kale waxaa jira dadaallo dulmaasadeed oo ay garwadeen ka yihiin madaxda dawladaha reer galbeedka taasoo lagu doonayo in lagu qaboojiyo xiisadda ka taagan barnaamijka nuclearka ee Iiraan waxay ahayd saacado kadib markii Iiraan ay ku dhawaaqday inay kordhinayso heerka tayeenta maadada uraniumta wax ka badan inta la ogol yahay sida uu dhigayo heshiiskii nuclearka ee 2015 ayaa madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence waxa uu ka hadlay jawaabta ay Washington bixinayso Iiraan ma aha inay jahwareer ku rido dulqaadka Mareykanka oo aysan ahayn in xal la waayay waxaan rajaynaynaa wanaaga laakiin Mareykanka iyo militarigeynaba waxay diyaar u yihiin inay ilaaliyaan danahayna ciidankeena iyo muwaadiniinteena ku sugan gobolka laakiin Iiraaniyiinta lagama yaabo inay u dabcaan hanjabaadaha Mareykanku inkastoo dawladaha Yurub ay wali diidan yihiin cunaqabateynta Mareykanka mar kale uu ku goodiyay in Iiraan la saaro waxayna doonayaan in laga shaqeeyo nidaam Iiraan loogu ogolaanayo inay saliideeda u iibgeyso suuqyada Yurub iyo wadamada kale adduunka tiyo laga dhaga fureysanayo cadaadiska Mareykanka waxaa la isku dayayaa in geeska la geliyo reer Yurub haddii aan hadalka sidaa u dhigo Yurub aad bay uga gaabinaysay inay hesho waddo ay ku sii wadi karto inay kula ganacsato Iiraan taasoo aan ku xadgudbaynin cunaqabateynta Mareykanka hase ahaatee ismarwaaga xooggan ee u dhaxeeya Iiraan iyo Mareykanka uma muuqdo mid soo dabcaya oo xaaladda iyo dagaalka xagga afka ayaa cirka isku sii shareeraya laakiin dadaalada ay wadaan hogaamiyaasha gobolka ayaa ah mid wax ka bedeli kara xiisadda taagan Washington waxaa gaaray amiirka dalka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad oo isagu hogaaminaya dal ay Mareykanka ka joogaan kumaan kun oo ciidamo ah isla markaana waxa uu muhiim u yahay amiirka xal u helida khilaafka u dhaxeeya Mareykanka iyo Iiraan maadaama ay Qatar xiriir dhow la leedahay xukuumadda Tehran ugu dambeyntiina magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar waxa ka socda kulan laba cisho socday oo markaa dhaxmaray dhinacyada isku haya dalka Afghanistan wafuud ka socota dawladda Afghanistan iyo wakiilo matalayay ururka Taliban ayaa ugu dambeyn kulankooda waxa ay soo saareen murtiyeed markaasi ay ku sheegayaan in la yareeyo qasaaraha soo gaaraya dadka rayidka ah isla markaana laga wada shaqeeyo nabadda si markaasi looga baxo colaadda muddada dheer waddankaasi ka soo taagneed wadahadallo nabadeed oo laba cisho socday oo ay ka soo qayb galeen wafuud ka socotay dawladda Afghanistan iyo wakiilo matalayay ururka Taliban oo ku kulansanaa caasimadda dalka Qatar ee Dooxa ayaa kulankoodii uu soo gabagaboobay iyadoo labada dhinacna ay ku baaqeen in la yareeyo qataraha soo gaaraya dadka rayidka ah wadaxaajoodkan oo ay martigeliyeen dawladaha Qatar iyo Germany ayaa waxa uu dhaxmaray siyaasiyiin ka socota dawladda Afghanistan xubno ka socday ururada bulshada rayidka oo ay ku jiraan haweenka iyo kooxaha ka dagaalamaya waddanka Afghanistan ee Taliban oo iyagu hadda markaasi u arka arrintan fursad nabad lagu gaari karo
bayaan wadajir ah oo ay soo wada saareen dhinacyadaasi ayaa waxa ay ku sheegeen in si wadajir ah loo xurmeeyo loona ilaaliyo sharafta dadka noloshooda iyo weliba hantidooda isla markaana aad loo yareeyo khasaaraha soo gaaraya dadka rayidka ah ee dalka Afghanistan. Kulankana waxa uu soo gabagaboobay dabeeqadii shalayto oo isniin ahayd. Bayaanka ayaa sidoo kale waxa uu ballan qaadayaa in damaanad buuxda la siiyo ammaanka goobaha muhiimka ah ee dadweynaha ay isugu yimaadaan. Waxaana bayaanka lagu sheegay in la xaqiijiyo ammaanka meelaha sida iskuulada, goobaha diinta, suuqyada iyo meelaha kale ee muhiimka ah ee dadka markaasi ay u shaqo tagaan. Qaari Diin Maxamed Xaniif oo xubin ka ah wafuudda Taliban ayaa waxa uu sheegay in kooxaha isku haya dalka Afghanistan ee kulanka uu uga socday Qatar ay ku jiraan xubno muhiim ah oo dowladda Afghanistan ka mid ah, waxaana dhammaantood isku raaceen buu yiri in si wadajir ah nabadda waddankaasi looga shaqeeyo, aadna looga fogaado in khasaaro mar kale la gaarsiiyo dad rayid ah oo aan waxba galabsan. Ballanqaadadan ayaa waxa ay imaanayaan maalin kadib markii ugu yaraan 18 qof ay dhinteen, in ka badan 180 ay dhaawacmeen, waxaana dadka dhaawaca ku jira boqolaal caruur ah kadib markii weerar bambaano oo gaari loo adeegsaday lagu qaaday meel dad badan ay joogeen. Waxaana weerarkaasi sheegtay kooxda Taliban oo iyadu muddo dheer waddankaasi ka soo dagaalamaysay kana soo horjeeday dowladda reer galbeedku ay taageersan yihiin. Kooxda hadda weerarka qaaday ayaa sidoo kale waxa ay qayb muhiim ka tahay wadahadal ka socda dalka Qatar. Kulanka u dhaxeeya dhinacyada isaga soo horjeeda Afghanistan ayaa waxa uu daba socdaa 6 maalmood kulan toos ah oo dhaxmaray dowladda Mareykanka iyo kooxda Taliban. Kulankaasi oo sidoo kale ka socday Doha, waxaana kulankaasi ka qayb galay ilaa 50 wafuud ka socota Afghanistan oo siyaasiyiin ah iyo sidoo kale dad u dhaqaaqa arrimaha bulshada oo ay ku jiraan wafuud haweenka. Wadahadalkan ayaa sidoo kale ujeedkiisu waxa uu ahaa in lagu gaaro nabad waarta kadib markii ay soo baxday rajo aad u weyn oo ah in badi ciidamada Mareykanku horkacayo ay dalka Afghanistan isaga baxeen. taasina ay keentay in kooxaha Taliban ay soo dabcaan oo ay diyaar u noqdaan in wadahadal lagu dhameeyo khilaaf kasta oo taagan. ergaga qaaska ee Mareykanka u qaabilsan arrimaha Afghanistan Zalmi Khalilzad ayaa isagu waxa uu wadahadallo wareegii toddobaad socday uu la yeeshay kooxda Taliban, waxaana kulankaasi uu ka dhacay Doha si markaasi loo riixo heshiiska nabadeed ee lala gaaray kooxdaasi. waxaan hadda soo muuqanay rajo aad u weyn oo ah in dalka Afghanistan la soo afjaro colaadii muddo dheer halkaasi ka socotay. Taliban oo iyadu marar badan diidaneed inay la xaajooto dowladda reer galbeedku ay taageersan yihiin ee fadhigeedu yahay Kabul ayaa hadda waxay ogolaatay inay ku soo biirto kulanka Doha ka dhacaya si markaasi loo sii ambaqaado dadaalka nabadda ah ee Taliban oo iyadu muddo dheer diidaneed inay la xaajooto oo ay la fariisato dowladda reer galbeedku ay taageersan yahay ee fadhigeedu yahay Kabul ayaa hadda waxay ogolaatay inay ku soo biirto kulanka si markaasi loo sii riixo dadaalka nabadda ah ee la doonayo in dalka Afghanistan lagu soo dabaalo. kooxdan hubeysan ee Taliban ayaa waxay u aragtaa madaxweynaha hadda talada dalka Afghanistan haya ee Ashraf Ghani in maamulkiisu uu dabadhilif u yahay reer galbeedka, laakiin hadda taasi arrintu waa ay ka duwan tahay oo fikirkii hore ee Taliban ay qabtay waa uu bedelmay. waxaana Taliban hadda diyaar u tahay in wadahadal lagu dhameeyo khilaaf kasta oo taagan, laakiin waxay mowqif adag ay ka taagan tahay ciidamada shisheeye ee waddankaasi Afghanistan jooga, waxayna shuruud ka dhigtay in marka hore ciidamada shisheeye ay dalkaasi isaga baxaan. waa tahay daawadayaal guud ahaan barnaamijkii bidhaan qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay. inta aynu mar kale dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.